baashaan way cimaamadaysaan tahay ma garan shacabka shiidla way dulma yihiin nadiif waa dad sharaf leh laakiin siyaasiyiinta macnihiis dhiigga shacabkooda ay ku awrkacsanayaan waa beentii xasan sheekh maxamuud hadduusan la shaqaynaynin xamar saas shir jarayd uguma qaban karo sheegow markii xasan uu ceejiyey subayr lama arkin haddii ma arkaysa sidaan uu hadlay ila wadaaga ninka ugu roonaa shaashaa uu ahaa shaashaa ayaa u hadli jiray si wanaagsan ha hadda ma fahmaysa ana runtaan kuu sheegaya markayaan been laguu sheegin shiidla way dulma yihiin laakiin hadha kalaa jirta meesha baasha way cimaamadaysanta maamulka macnihii baasha yani si aan kugu sharaxa ma garanayo waayo walaalna soo wacay baan hadda qadka macnihii aan ku soo dhaweynayna hallo السلام عليكم على هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا المحاك وجرة نيو ورت هذا شيء القاعدة جامعة SMC نوي واي دتك مرنا ما يرايان سومالي وده هدي اللي في فاق وركب بديه لا أره بوقنا دمس لعن مفايس أصل لا أره مرك ولي اللي كهشي إنه له في فاق ورت دمبوي لاكيس Soomaaliya hadii ko waaye dagaal jir bilaaw marka jaamacad inoo waxyaabo badan umadu wax magaratada ah bandhisto eedeedan kama hadsantin in hambal yeeyana wala ada sheegas wal badan in ka bahi may kamid Soomaaliya hadii aan qaldanayna way waaye dhulku wabiyada marayaan inoo shan gobol inga ka aale hadaan been sheegan maya shan gobol ay arnay lix gobol lamada jub gedo iyo lamada shabeel iyo hiiraan yow dadka inta wabiyada marayaan mayba ang malayase inoo dhibaatooyinka habsadeen dadkii dhulka lanku qooyina dulma tirsadahayano hadii jeeb dulma badan la kahay sababtiina aan malayaw inuu qariirad ay diid hore indejiye tamay wali ay diid iyo maqaale inuu saddex dhagax iyo moos iyo meelaraayisa iyo saddex shay adiga dhagaxaga dhulkiisan ku qoytan inuu sababay mooskan iyo qudaartan dhulkan wabiyada marayaan hadii tan dhamana nolol mahalaasan inuu saari marka horta ilaahay awoodis sadana mankan maxaaga lan hasaw oo ama gobolada dhexe ka kooyeen qariiradii iyo degsideen ilaahay awoodisan suurta galawayti dadka dhulka daladeen wax ma garat way laakiin awood ilaahay iyo horta tacaddan la kanool may weelade dadkii wali waaqaagan la soon 2025 gabagabadii qarnigii 20aad la ka jar aaladaha adduunyada dhan hal guri nagati wali dadkii may ba faham waaysiin dhagaraha nimankan hamaleegayaan 35 sanana hamaleegayeen iyo sidii ilaahay in badbaadi oo iyoogana wali ilaahay hata anag mahad eliyo in ilaahay badbaadi iskale dadkan ilaahay badbaadi may wali aytay la kabala gobolka banaadir ilaa lamada jubba inuu netka waxyar u dhowow telefoonkana u dhow adoo raalli ah codkaaga ma arkaysa uu gogo'ayaa mas-uulka dadka hadalkaaga aaday u danaynaya insaan qiyaasayo netka u dhowow ma arkaysa insha allahu tacaala telefoonkana u dhow walaalkaas isaga ah waa uu ka go'ay dhegaystayaal daawadayaal laakiin hadduu nagu soo noqdo waanu soo dhoweyn doonaa si kastoy ahaataba dhegaystayaal daawadayaal ma arkayse macnihii baasha way cimaamadaysan tahay laakiin yani waxaan rabaa inaan la isku qaadin shacabka dulman iyo siyaasiyiinta hallo soo dhow odkaysa fasiix ma fasiix ku soco marka ustaadi qariirada ay dejiyo may kamid markaad fiirsata nimankan gobolka banaadir ilaa jubbooyinka baa boqol gedo inuu iska fidiyaan meelo hadda oo saansaantiyo iyo may la raayis may taariikhdii iyo may la raayis
ardinjo saamaynta ka weeldhidi may ka mid ah lamada jubba oo goobaan la roogi jiray shabeellada hoose oo ukumoosho dhikadeen banaadir oo iska dayeen dadkan dhaladeen reer xamar le haadeen danwadaag le haadeen iyoonay mundulood haadeen inuu baawarka iyo weeldhadan taasna ilaahay awoodisa ka nagado waaytay may weeli nimankan ma yaraaysan dhan kasta may hoogan saareen gobolka banaadirna inuu maanjoorito iyo weeldhadan shabeellada hoosna iyo walla ka warsada lamada jubbana ka habsadaan marka dhulkii saas haay oo webiyada maraayan lehda gobol dadka degan markii laha ka bilaawo hiiraan laha ka hiji shabeellada dhexe laha ka hiji shabeellada hoose lamada jubba dadka an dhaladeen oo dhabtilanku kooy dhulkaas ka abtirsadaayaan ama digil aw mirif la haadeen ama danwadaag haadeen uleesaad badan ya tirsadaayaan nimankan 35 sano la kahaay uleesaadkaas allah ya ka badbaadi horta taas inuu aan mahad naganga roog tiidiya ka ilaahay dayuus man gargaaro siduu diinta ka sheegi war ada maalin walba aad iyo walaalka wala kinshameeri aayo ada ka talada waay lan ko kale aayo jeeyada ka talad maalintii dawal la ka arlay ada dahowta maalintii aamus la ka aroonada aamusta horta dembe dhaaf milihiidi may weelide hadda tusaale ma hayn bahay warkaada hadda shabeellada dhex ka wariyahayta lan kasto aqlan saaxiib barnaamijkaas eedaan fahmay may weeli haddii qadiyad la ka doodaw qadiyada sheego wal ku horeey maanta danwadaag ha maraw ma jirta dal idibad war siyaasi qadiyada sheego ku dahow waay oday dhaqameed qadiyada sheego ka hadalo waay may ulma u diin qadiyada sheego ka hadalo waayeen waxa garadkii ka hadalo waayeen maanta dagaal qabiil inuu ka hadalan may koos garay qabiil hur waay wala iska dhiciyo koraan wala iska dhiciyo waayaan maalin iyo guulay maalin walku guulayside laakiin lan dhon gurijay la ka weerari siyaasigi indho an haay maanta generaalki kaliya la haayeen u si dhalinyaro la dulmi la ka tumadi xuquuqdiyo diin islaam iyo diin gaalmid dhigaason aan lahayn haddana waxyaabo ku turkuteen la ka eeday mar la kaleey mobile dhaayeen mar la kaleey beesi balaag man ya may la raayo meelo la ka dhagaay waa war in is qobadaan oo lanka akhriga la fahmo tiyeedo ka hadalo waayeen oo haddana maalintii uu miiday la sheegay leeyin oo generaalkana isbitaalka hooga la ku duuge dadkii yoo haayeen maanta iyo dhaadhiyayana joohara dagaalka ka hee unina dulmi yahay taas horta higi in dhig jaamacada khayr allah si waxa magaratada iyo sheegdi dadkii akhlaaq lahaayeen kooba ogaayeen maantana hadii jaamacadan ahaayada lahayn wali dad badan oo doqomiin way dagan lahay tan kala dagaalka maanta aad sheegdiniyo oo damul oo shaash madaxda ka eta oo maanta sida yahuudan dhaqamaas oo kala qeybi tasak jamaa'o ama qeybiyo hukun dadkiinoo la isku horsheen guriyaal dumi barakaad dadka la kasuubi barnaamijkaas may kaloon iyo hay inka bay dadkii hadda dhow la ka dhamaayay warti wan liweenki yaali naftar jeeniyo wal hay inka bahi may weeri dadkaas illa hadda dadkii dileen may oga laari dad hindhoha hirideen yeewa laari marka meel may bakaade ka muuqate oo jaamacada hadaladiina ha iftiimiday inuu meel naftar je dagaal lan isticmaalo koonfur galbeed dumintiye oo qiyaano qaran iyo maata la dhameey inuu meelas ku soo may bana daliilkiinka amiin jeesow may aray lan kala man haysado lafta gareenan haysada dadkaas la dhamaay kuwa maantana waxay dhaheen hirshabeelle cali guudla waan u haysanaa ma dhihin qabiilkeenna la soo weeraray qabiil hebel ana soo weeraray qabiil hebel waa iska celinaynaa ma dhihin qabiilkooduna way sheegeen cali guudlaawana macnihii way u saariyeen kuwii wartaasi lagu dhameeyeyna macnihii qabiilkii xataa la dagaalamaya ma sheegin hubeer waxay dhaheen lafta gareenan u haysanaa ma fahmaysaa waa kay hubeer walaalaa nahay laki marka meelo may ka arag ka sheeka oo adeeyase marka jaamacada warjayno bayikama dhibaan warka inoo imahamadaysan oo taasay digaal siyaasadeed dhan kasta nimankan maanta filada roogan
dhan kasto Soomaali in dhibaatay koran oo danadii oo ka deero koran inuu andhaga ma hayaan barnaamijkaas madiya iska fiirida shabeellada dhexe shalay dagaal ma bilaawan shiiliyo abgaal iyo qoladiyo maantana dagaal ma bilaawdo berina socde war siyaasi shalay hadal waay maanta may ka hadalsi haddana may kalo in muuqata nimankan lilaynaagii hiraab oo jaamacadda SMC MBD maalintii fillada laha ka amara sidii eeygi oo kale nag iyo leeyga aragaas maalintii fillada la ka gaabi faynus la dheerayo ama leeyo mina waa daroon isla isticmaalaw nimankan taasan limid ay nimankan fillada ar hadda ay dheerayo oo koonfur galbeed aayad ka hadalay aroy meel la ka istaago mal war lan kasto aayad ay ka talada waay lan kala daba fadheedo daba dhoog nagada adduuni aakhirana hoog iyo nay halaagan dabku lan kasto aayad ay ka talado markii sheego intaan la dilinaan ka hadalnay intaasaan u warramaynay sida robow markuu xidhnaan u hadlaynay siyaasiyiinta hadda sida safiirka Soomaaliya Moscow u fadhiya Zubayr oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeyn jiray dowladdan ilaa dowladii far iyo odayaasha hadda hadlaaya shiidlaha afkooda ku hadlaaya markii qaar ka mid ah beesha dan wadaag ay dhaheen sheegow qabiilnimaa loo beegsaday qabiil ma ahanay dhaheen kuwa siyaasiyiinta ah qabiilna ma weerarin dowladdan cadaalad ka sugaynaa hala dejiya arrinta sheegow markii la ceejiyeyna ma arkayse macnihii sidaan hadda uu u hadlaayo Subayr iyo odayaashan uma hadlin xamarka hadlaaya maxaa marka sheegow markii la ceejiyey oo hadli waayeen maantase haddii shiidla la weeraray waa laga gardaran yahay maxay u dhihi la'yihiin gaal jecelka iyo abgaalkana soo weeraray waan iska celinaynaa maxay u dhihi la'yihiin maxay u leeyihiin madaxweyne xasanow cali guudlaaw naga bedel maamulka noo keen maxay u leeyihiin yow tamar la faka jirta kowdhe tamar la faka jirta walaagun wal fahmi shaashaa nimay dhaan oo wasiir ku-xigeena cali guudlaaw saaxiib leeyahay kaban uu tumanay maanta waxay qaar marka kuwa kale kaara waxay leeyihiin dadkaagana waa la jarjara adna kabanaa tumanaysaa miyaa gamekoo dhan uu ogyahay marka haahe shalay ma in hadala waayan maduusa dooday oo sheegoo la dhibaatay ma indoo waayan inta jireen aad fahmaysaa jawhar holaca ka kacay uu leeyahay Zubayr hadda sheegow markii la ceejiyana ma dhihin jawhar way holcaysaa qoryaha soo qaata inta ka dhaca ayuu leeyahay okay sheegow waqtigiisa kabishi ani marka xog ogaalaan ahay qosalaan ku soo galay qiyaami roogna adduunyo gadoonga roogna may weelay maanta may roogne odayaal dhaqan i waxgarad lan dulmilin dibi banaanka inuu meediyaha istaagan leeyin magal i balantiyo war una lankaana may dili kor lankaas dulmaga lin dilina xaqaqaad male horta zamanka maanta unu roogna zaman ilaahay lay haalshay ogiyu dad shalay generaal jo dhibkalin jeysidii ogiyin oo Soomaali dhon markaata ka hayti ka dhiidhiyi waayeen ka hadalo waayeen ya 24 sac la ka gebagabay maxkamadis lan geberto dulmo gubina ya afar maxkamad raafaan la ka qaadahay walaagas dhugun sidii ya maanta ana ma in meeri faday inuu shiidna la dulmiyahay wara dooradana ma weelas walaagas wal doorad aqbalaas in sheegade kuwa dulminaya mayray lamada tanaagi kuwa dulminaya iyaga kowka kuwa idaacada ka hadlay number 1 way meesha laga abaabulay duulaankan way og yihiin isku team way damul jadiida ka dambeeyay beeraha lagu weeraro dadka neew maylaya naagihii hiraab oo koonfur galbeed ay jeen doodana areen tan hadiriisul wasaaraha Hamza oo Jubbaland masdaarood aayad jeen doode ari walaagas lamada to walaagan marka Soomaali wal shalbahi Soomaali taariikhda hoso doonta dad badan kaarsho gubudi sida fiqi oo kale fiqi hadda beriyay siyaasadda inta ka fuulo doon walba mareeban wali adduunyada والله دم القجاج دad badan ee bay tisaayo bismillaahir rahmaan Suudaan uu ka soo kaxeeyay isagoo meesha fuul Misir iyo rooti laabjeex ku dhacay keenay oo taliye sirdoon ka dhigay ayuu hadda wuxuu leeyahay waxba ma hayo koofiyada dheer intay ka dhacday
كور نيو لا لاقي جامعة دي سيورك هسارتي والله في رسالة كربة ما إيه إنا لله وإنا إليه شيخ شريف أطاش هيستمر كنا هبين أنتوا قال أقول بدأ أرتيس واي هذا قاعدك وينتهي لبور عادي هواي شريف حسن يقرسين قنيسة بدارتيس بسم الله بارك اليوم سوماليس برتي dadkan qoomiyadan wabiyada degaayaan hiiraan ilaa jubbooyinka dulmaga badan lahanjeysidii haddana weli la kawada khayraadkii iyo ilaahay kamanaysidii lan ogolaado waysanya wada noolaashada hataa iyo indiidinayna laakiin aniga xukume guriga kay xukume gabirta kay xukume leey war sharciga islaamka walaagaas ma qobta gaamo inuu is qobsanaan dulmagan 35 jirsaday nus qarniga ka dhow gaamo inuu is qobsadaan Soomaali hal way muslim hal way lan ku hobi diidona wariya wali koreebo wayti wal kala koreebo wali binaadin meel aanay leeb kuleela la ka abuuri leeb kuleelay koreebe nimankaan meel la ka yuri okiyi marka nimankaan dan wadaag idil oo هل سؤال هدان كويديو عاصمة صوماليا مانتو وحمر وهذا هوية معناه أي النقالة أي ليه صوماليا أي كو إسباريستان يدولة نمدي هذه عاصمة صوماليا قال كعية أي نقول لهاي مانتي ماركيس هوية حكم مكو هيسان لها ضدك مكو بعد لها أن كويدية هذه إيربوركا معناه قال كعيو أن لقو قرين عيديد وعبد الله يوسف لقو قرين يقول شوقه صح ما دي لهاين ما أنا صورة قلفات النقالة ما ده لا ما كده وها دغون وها مقارنة عن أوجاين موجمة برنامج كون والعرقة إلهينا ورباهين يسك أفريقيا أنت دغاغو ومدن الظلمية الظلمية دودا سو إلهي سومالي سدي أنت بحلال ما إلا رايش ظلمي بريكة إذا عدا ستاجر سنين ميلي كريا maanta warbixinta la ka sugayeedo marka maasadi Soomaali may ka aalase nimankan dulmaga Soomaaliya inuu qarannimadii hanaga diideen waa nimankan hadda may la raais meel ka istaag waysan lan dulmilin dilin leen dulma ma indilna ilaahay awoodis badan war nimankan niman xishoodayaan is qofsadayaan wax garad le ma taas la yaabi ilaahayna qoom hadii dulmi iska raha inuu adduunyada la rogaa sheegay nimankan ma koobsadaan ari ilaahay inoo ka dhiid inna lillahi mise dadka Soomaalida kala biino walba fahmayaan ma ka aalayaan a'uudu billahi minash shaytaani dadka Soomaali maanta gud dheera kirida Soomaali magaaje tirtiran qarannimada Soomaali halaayeen dal idibid Soomaali walan hayn maanta magaca Soomaali inoo la kodhuumada rugta marka nimankan ilaahay shartiyo ka magan galni iyoba ma malayaasa inoo gebagabadiyo ka jiraan kaarsho kinka dambo inoo isticmaalahayaan ummadda muslimiinta halaale mayba in sheegay inuu ducaado badiyaan Soomaali inuu ilaahay mideey aloobtiyo iska ruga diintiyo iyoonay daljon inuu ilaahay badbaadi dhibaatooyin hore waliba soo madaxweynaha Soomaaliya Raila Odinga ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya oo geeriyooday tacsidiisu ka qayb galay meeshana uu u sujuuday shucuuru muujiyay laakiin ciidamada Soomaaliya iyo saraakiisha Soomaaliyeed oo la laayay madaxweynaha muxuu ugu tacsiyadeyn waayay mararka qaar qaraxii oo ka dhacay xamar dadkii oo cisbitaalada yaala iyo diyaarad raacay ciidankiisi muxuu ugu tacsiyadeyn waayay niyow mayla aray sadar muuqdo su'aal ka dhan lanka mayla aray ficil jay haddii isbiyan mina wali usmadaas sheegada sax waay lankun qoolkii usako qoolay oo ahaay garahagi Nairobi ka dhiki hamarkan Nairobi ku laade ya ficil ahaan ansuub yahay mayna kamada hal qof gaale hooba dhamada taasiidis bugo hor saaranta iwaanjay Soomaali malaayiin hadii dhamaaton ma taasiyeeyo maana la sugaw marka taas walaa soorninka sheegay Sugaal Cabdulle oo sacad ah oo abwaan Soomaaliyeed oo police sarkaal ah ayaa qarax iskoola bulisiya lagu dilay isaga macnaheedu haween iyo macnaheedu rag iyo dumar uma tacsiyadaynin ninkaasi wadaniyad ayaa laga urinayay marka Kenya diyaarada u qaadanaya anu malihi muxuu ugu tacsiyanaynaya tacsida gaal iyo muslim way ka dhaxaysaa laakiin macnaheedu kuwa gudaha muxuu ugu tacsiyan laayay madaxweynaha Soomaaliya wallahi ma laadino warka iska adiye aan gun Soomaali inuu gud kirido hukunka han kori muushma
soomaalina nusraylan kun hukumahan korna qabiilan jee dhammaystiray soomaalida magaaji dhan inuu tirtiro yaa qabiilan jee dhammaystiran lahay haddana waaba dhammaystiraba roogaba soomaali ma in herigeeg soomaali wal in herigeeg lan sheego kor jere soomaali lan heri male maanta gudaha lan kiroogo og soomaali masiibi ka habsati meel kasto yeedo roogda wallahi soomaali yaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalka isaga ah netka ayaa macnihii waxyar na soo kala dhex galay oo aan u mahadnaqaynaa walaalkaasi stuudiyaha warbaahinta Southern Media Corporation inoogu warramayo dhegaystayaal daawadayaal waxaan eegi doonaa biidnillaahi baari ma arkayse macnihii muuqaal meeshaana ama cod ayaan arki doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo hadha baa meeshaan macnihii aan uga jeedaa iyadana nimankii naagihii hiraab la dhahayena waan u jeedaa bahashu waxa weeye way waraarsan tahay hadha waay haye soo dhow al-shabaab madasha kuwa la baxay kulli waa ka soo horjeednaa mana rabi doona warkii shalay ka soo yeeray raadiyaha ee ka yimid dhinaca mucaaradka galmaax yuunis waa muxaafid ee mucaarad maahan waana ka soo horjeediyaa mucaarad oo dhan waa ka soo horjeediyaa sababtoo ah ilmihiisi iyo naagihiisi ama dadkiisa xabaysta ayaa waxay joogaan xamar iyo eryadiisa ma arkayse odayaal taageersan xasan sheekh maxamuud waxay dhaheen nimankan la leeyahay ma arkayse mucaaradka dowladda federaalka soomaaliyeed waa shabaab iyagu waa isku mid a la yidhi nimankaasi waa ka soo horka jeednaa baa la yidhi ma arkayse macnihii ma ogolin marka qofkii la raba in la dilo maanta shabaabaa tahay la leeyahay adigu shabaab baa tahay bal wax ka dhe adiga haddii la rabo dhiigaaga in la banaysto maalkaaga in la banaysto in lagu dilo marka la rabo shabaab baa tahay sidaasaa kuu qoran soomaaliya waxa weeye isla kuwii shabaabka aas-aasay inay shabaab dad ku tilmaamaan ayaanu joognaa oo sidaasi qofka bani aadamka dhiiggiisi lagu banaysto xildhibaan xaadoole oo mataan cabdulla ah walaalkiisii la dhashay ma arkayse oo hadda la soo daayay isagana sidaanu leeyahay bal aanu macnihii fiirino أريدي عام بحي أو أدرك موسى السعودي الشيء وحكمت هاد محمد كصباح في لذا عندي إلهي إلهه ما ذهب هذا الشيء قد أفرت القرن باته ما كصباح كلها هاي لكن هذا الاحتراء وحكوها الإحضارات الإحضار الإيجاب ما هذا كيف رئيسه بنابحها هذا الشيء يروح رجينا يا إنه نغضب بنابحنا بدأت هي أمانك يمدح سمتين تبا إسلاق بيان إسلام عليان أو نغضب بنابح ومد الصوماليات كلا جيو أو نقطة بنابح ومد الصوماليات سوي مالان أنا كان دور كينا نبضون مو اللي قرن مو إنك أهل بيت هامبا إن ندور نوجد أن كقادنا أيام ديارنا هاي وحلا روح الصومالي كلا جي أنا وان دينا روح الصومالي سكينا أنا وسودوينا حارة مرك أنا نروح للحكي راهو قبل كبنادر أفر بلاد مدهات لا يجوا كهر أيالو اسمي يسبدل والله يا المدن اللي مروي سأوكتين قاصة الهربادر سأوكيين يسبدل كاس مركز السمي أي معمولي كهر رئيسي كل هجامين عين محمد أحمد أمير يمدالي وحاي ما ريجرين دتك حمر دجن ما ينجرن بوغان يعتاب كان يدب كان خبر لتم مايو أضل تم مايو حبين لسه عقولي الله ده هايو أنا إيري حبلا وركي دي المعلومات مغلى هاي بس واحد مجرن أغلى علمي الاستماع لي وحنا مغطى نكان ماشي أنا صديق تمضنا مدح وينو إنه شنت ملي قاضي كرن لما باك على دورنا يسا شنت ملي بعد دورن أمبني ما دوريسا ترى وحاك وسيل هاي نين إيش شنت ملي وكل في عيد قدر صو waxaadoo la walaalkiisii waxaadoo la taqaanaan xildhibaanka afar galmaax matala oo ayaan dhaweyd warbaahinta intuu soo istaagay lahaa walaalkay waa wuxuu yahay male nabadoon man waa tuug madaxweynow ku hay ku hay ninkii dhahayo waay ayuu la dhashay walaalkay ma arkayse macnii qofkii meelaha ka baqbaqleeyay waa la xiraa ninkii uu dhahayay ninkan waa ninka xidhnaa hadda ninkaasi waa la soo daayay waa ka wuxuu leeyahay
muuse suudi shalay wuxuu lahaa farmaajow ka soo bax maantana xasan oo saas السلام عليكم إن عاد المريح كالي لقى حسونين إنكي كون يحابدي مركو على فلان شوقو عاد حيطو كلي البدن مركي حلبي يلويدو الردا بيد لي مركن عدي كشيقين عشيريو إلباكو قرن لقى حسونيو سيد الروح دال الروح كالكاغا عررايو مالنتي حداتي وحبنا لقى حقو قرون كوذا يشي وذا حدانيو الحورة جريني بنان لقو حشيميو عذابكيو جندك لكين لقو حلو اليوبو حرن حتى زر لا يدعيد لقو ديرو الله علو أذا حالي له وشنق عاو عشاداني خيارني وإلا تاي وإلا حلوستاني تذكرني من طبادي سنجرين وحلا عليه عشركي كتغيبا نقتين حبيك يليني وقتي خيارك قالوا مالو حدي بياي اللياتي بحالي والو حلا حالي عوان كملت باكو قرح ابن كيف لاي عدد كلانا خير باكو يالقو حسوماي عرب كاغا وحيران تركا عمل ويتيني حدودا وحيلقو قبتي حفلي هذا الشاي الكانا وحيلقو حنيد ابو حسيا وحلوستا ومحكمة عادي اللي جاي عزي كولي كتاي شيخودان عادك قرينيني عربا دبتا مالين تالقو حشيميو حفلو قلايا إلا حسيادا مرسلكي شبه حدا جبريل عادلوغا كيني كوالو على مدية حاسن قوايا عذابا متيسن جنة لغا حسين ايو الله يو عطانك ديجي حد الباتا يا حيوم يا قيوم قلبي حيو كل كينك قراراتو أذيقا قماتيقا جهازا قايب كذا راهي ninkii aad u qaban qaabista qaatilkeedeelaaye kii kalena quus buu yoo waad ka qubaysaye arji baanu ku qoranayna qayla maantaaye qabilkii jaagada allow qalinkay raaci allahayow qabuuliga yeel qaadir baataa qunuuxiyo watiiniyo ikraanku qabsanayaaye البقري قرانكو دنبانكو قيشدا يهيغو قدينين يبو بريدو ومثقاليا الله يوزا قادرو قنيو ويني أذيغا قلوبا أوغنكا قلتا من روحي أذيغا وحينغا قرصون حدنكا قريني قران جدا كوليتا يدن قرسوايني adigaan qiyaas leo bixin qalinka mooyaane qasnadaadu adigaanay madhan lana qiyaasayne allahayoo wada qaatiron qirayo wodaaye qof kastabaada malag u diraa qoraya diiwaane adigaa wax kala qaybiyo ruuxnaan qadine adigaa quduuson xigtiyo ehel qaraabayne adigaan qofku xiga qof kale uga qabyaalayne quraankaaga adiga xaq iyo qaabilkau dhigaye raxmadaadu waa qaaliyo lagu qaboobaye naxariisada qaniyo oo bixiya qil weyne adigaa kolkaan qadeelahayn roobka noo qubaye adigaa qaaroon baryada laga qatoobayne qaxmaan ku hoos dhiganayo qaadir baa tahaye
adigaan qatalin ruuxaduu qayshi ku yahaye malintaa qiyaamuu dhexeen qudheegaynin malintay qabyaaladii hadheen qolaan la sheegaynin malintaa la wada qaawan yahaye ilmadu qoyso ee qalabka suurtuna dhaceqiiqa la afufo qoraxduna timaadeen dhirtiyo geeda qarinaynin ee dhididku qaarkood liqow qariya ruuxooda ay samaadu qaraxdee dhulka qalinka loo duubo ee adiga lagu qaabilin qalad la sheegaynin allahayow qafiif nooga yeel qaadir baa tahay allahayow